koronti waxaana wanaagsan daawadayaal meel kasta oo ku sugan tihiin kusoo dhawaada barnaamijka xogta ganacsiga oo toddobaadkan aanu kaga hadlayno arrimaha caymiska ee ka taagan Somaliland iyadoo baarlamaanka Somaliland gaar ahaan golaha wakiilada ay hortaalo xeerka markaasi ay kaga doodayaan xeerka caymiska ee Somaliland. Haddaba maanta waxaa martino ah gudoomiyaha sharikada Baraka Insurance oo ka mid ah sharikadaha cusub ee markaasi ka howlgelaya arrimaha caymiska markaasina dadka u haya shaqooyin kala duwan oo arrimaha caymiska ku saabsan oo markaasi ay ogaan doontaan sharaxaadooda qaabka ay u shaqeeyaan iyo waxa dadweynaha ay ugu tala galeen. maxay tahay nuxurka caymiska, muxuu ku wanaagsan yahay dadweynaha dantooda, sidee buu uga tarjumayaa, maxaa uu wax ka qabanaya ama uu xalinaya ee dhibaato ah ee dadweynaha haysta, ujeedadiisu maxay tahay iyo arrimo kale oo kala duwan ayaa markaasi ku ogaan doontaan barnaamijkan xogta ganacsiga ee martida uu noogu yahay gudoomiyaha sharikada Baraka Insurance Dr. Caydaruus Maxamed Ibrahim oo markaasi aanu weydiin doono su'aalo kala duwan oo kamid ah nidaamka ay u shaqeyn doonaan iyo sidoo kale caymiska ay ku salaysan yihiin ka uu yahay midka culimadu ay ka hadlayaan ka uu yahay iyo sidoo kale midka aan habboonayn midka uu yahay. dhammaan arrimahaasi oo dhan ayaa ku ogaan doontaan barnaamijkan xogta ganacsiga oo ah mid toddobaadla ah oo aad ku ogaataan arrimaha ganacsiga ku xeeran. Dr. Caydaruus marka hore ku soo dhawow barnaamijka xogta ganacsiga MMTV. waad mahadsantahay walaal Cabdishakuur Dayib iyo bahda MMTV. mahadsantahay. marka koowaad waxaan doonayaa Caydaruus inaad naga siiso xog iyo markaas arrimo ku saabsan Baraka Insurance maxay tahay, maxay qaban doontaa. bismillah. Baraka Insurance waxa weeye waa company cusub oo laga furay Hargeysa kuna goboladana dhawaan laga wada furay. For example Barow kale waan ka furanay, xarumaha kale ee Boorama iyo Burco ilaa Saacanood iyo Ceerigabo xafiisyada laftigoodana waxa socda establishmentkoodii iyo qalabayntoodii baa socota. marka waa company cusub oo ku dhisan nidaamkan islaamiga ee insurance-ka. marka company-gan xaruntiisu waxa weeye waa Hargeysa. waxaan ku noolnaa maxaa hayday fooqan durdur building dabaqa koowaad. waayahay caymiska aad doonaysaan dadka inuu qabataan marka gaadiidka mise waa caymis oo dhan baad qabanaysaa markaas. Baraka Insurance waxay bixisaa adeegyo kala duwan. waxaan bixinaa adeega caafimaadka, waxaan bixinaa maxaa hayday adeega gaadiidka, waxaan bixinaa adeegyada ay ka mid yihiin dadka for example oo kale markay ku jiraan goobta shaqada oo wiba la yiraahdaa Work Injury Benefit Act oo qofka hadduu shaqada ku jiro dhaawacmo kale inta ku jiro adeegii for example inuu insurance ku jiro oo aan damaanad qaadno oo aan dhakhtarka geyno adeeg noocaas bixinaa. marka hore waxaan doonayaa inaan ogaano waxa jira baarlamaanku hadda aad buu uga hadalhayaa, dadweynuhuna aad bay runtii arrintan ugu soo jeedaan. caymiskan imika aad doonaysaan ku shaqeysaan Somaliland oo dhan ku cusub muxuu horta ka jawaabayaa, muxuu dhibaato dadka haysata wax ka qabanaya, sidee buu dan ugu yahay dadweynaha Somaliland. horta dadweynaha Somaliland waan mahadnaqayaa oo waxaan caymisku waxa weeye waa adeeg cusub. marka way ku mahadsan yihiin inay ka keenaan su'aal adeegii qofka haddaanu fahansanayn wuxuu yahay iyo faa'iidadiisa inuu si yar dhib yar ku aqbalo way adkaanaysaa. marka adeegan imika ama insurance-ka laga hadlayo waa Islamic insurance. waxa kale jira wax la yiraahdo conventional insurance. conventional insurance waxa weeyaan waa insurance aan islaami ku dhisnayn. asalkiisu waxa weeyaan waa gambling. waxay noqonaysaa un khamaar oo kale oo tusaalan oo kale shirkadii bixinaysa insurance-ka ayaanu yimi dabeetana waxaan ku yidhi maxaa yeelay gurigaygaan doonaya insurance geliyo dabeetana lacagtii bay ka qabatay. waxaa laga yaabaa sanadka aan ku jiray insurance-ka ama adeega caymiska inaan dhibaatii soo gaadhin dabeetana lacagtii iyadaa qaadanaysa oo khamaarkii idaa ku guulaysatay qofkii maxaa yeelay client-ka ama qofkii loo adeegayna u khasaaray u soo noqon mayso. laakiin kan islaamiga ah waxa weeyaan uu ka yarduwan yahay oo ka islaamiga wuxuu ku dhisayay maxay waa iskaashi. waa kan ay culimada ugu magac dareen ta'miin tacaawuni ama cooperative insurance oo wuxuu ku dhisay iskaashi.
sidaynu ogsoona bini'aadanka gebigiisaba bini'aadanku maxaa yeelay sida caadiga yani markay bataan waxay dareemaan inay u baahan yihiin iskaashadaan wixii dhibe maxaa yeelay soo waajahaysa ay u wada midoobaan tusaalan ku soo qabanaya oo ka yar baxsan insurance-ka imka Soomaaliland oo kale waxaa ka jira dallado ama NGO ka jira dabeetana NGO-yada soo isku wada imanayaan for example waxay abuuranayaan Soya NGO ama Sonsof oo kale sababta u abuuran waxa weeyaan waa dalladaas inay ku midoobaan wixii afkaara iyo wixii khatara ee mabaadi'da ka hor timaada waxaa la isku darsanaya marka waxaa la isku darsanaya mabaadi' baa la wadaagaya marka Islamic insurance waa nooca in dadku ay isku darsadaan dhaqaale oo ay dhibaatooyinka kaga hortagaan haddii ay dhibaato dhacdo lagu xalliyo dabcan saasay noqonaysaa way dadka qaar waxay isweydiinayaan haddii lacagtii la ururiyo marka dhibaatana ay dhici weydo lacagtii sidee buu noqonaya mustaqbalkeeda horta islaamigu wuxuu ku beesgarisay maxaa hayday lacagtan la ururiyay haddii dhibaato dhici weydo dadkii laga ururiyey ayaa xaq u leh in la soo celiyo oo dib loogu celiyo haddii ay ogolaadaan in aan dib loogu celinna laakiin wax la samayn karaa sanadka dambe ayuu baa loogu wareejinaya xagga kale marka waxaa jira nidaam la yidhaahdo no claim discount oo ah shirkaddii markay aragto khasnada lacagta ugu jirta dadkii laga soo ururiyey waxaa odhanaysa maan idiin qaybiyaa mise sanadka dambe ayaynu ku yeelna khatarta marka nidaamka noocaas noqonaya way haddiiba qofku uu damco markaa inuu lacagtii go'aansaday inuu la baxo yidhaahdo ha lay siiyo sidee bay u sahlantahay in la siiyo shuruuc ma ka leedahay arrinta for example oo kale tusaale ahaan waxaan soo qaadan karnaa qofkii waxaan eegaynaa horta dadkan lacagta lagu soo ururiyo farbadiin marka waxaan eegaynaa qofkan lacagta dalbanaya wax qaansheega muu sameeyey kali muu sameeyey haddii gaarigiisa aanu ku caminay $100 oo maxaa yeelay uu qofkaasi uu shil galay sidoo kale yidhaahdo shilku noqdo $80 meesha waxaa imanaysaa maxaa hayday qaansheeg baa timi dabeeto shirkaddu waxay eegaysaa qofka khasnada waxa ugu harsan marka nidaam noocaas la marinaya way haddii sidaad sheegtay isagoo lacagtii qofku u taalo uu khasaaro gala ama uu shil galo oo lacagtii u taallay iyo shilka uu galay aanay isku dhigmin ayuu shilkiisu yar yahay lacagta inta soo hadhay sidee loogu talinaya horta marka koowaadba waxa muhiima in marka koowaad waxaan qiimeynaa shilku wuxuu yahay dabeetana lacagta u taalla iyo shilku hadday kala bataan for example shilkaa yaraaday intaan shilka la eegin shirkadda waxa u taalla nidaam ah oo qofka contract ba laga seexaa oo odhanaysa qofku goormuu qaansheeg soo dalcan karaa tusaalahaan oo kale haddii qaansheegtu ay yar tahay oo ay kooban tahay waxaan samaynaynaa qofkii aan lacagta ka qaadnay ayaynu wadaxaashood la furaynaa oo odhanaynaa maxay hayday lacagtaada barka ku harsan xagga baan kugu darnaa misoon ku siinaa marka taasna waxay lamid tahay tii hore lamid noqonaysaa dhammaan lacagta wada qaadanaya saasay noqonaysaa haddii bal ka waran khasaaraha uu geystay uu badan yahay oo uu ka badan yahay qiimeynta lacagta isaga u taalay horta shirkaddu mar kastaba waxay damaanad qaatay lacagtan la soo ururiyey dad kala gaargaara laga soo ururiyey marka dadka kala gaargaarka shirkaddu heshiis bay ka seexaysaa in lacagta laga dhigay walaalkii hadduu wax noqdo lagaga bixiyo marka haddii uu shilku bato shirkadda ayaa damaanadii qaaday oo lacagtii maxay shilka qiimihii intay qiimeyso dabeetana qofkii maxay hayda ka bixinaysa oo lacagta account ku jirta ayaa laga saaraya marka qofka shilku ku batay ama lacagta ku badatay wax qaansheega loo raaci maayo account-ka ayaa laga dabaraya way marka lacagta qofka lagu bixiyey dabcan soo lama odhan karo dadkii kale ee ku jiray caymiska ayaa lacagtoodii wax ka mid a kan lagu caawiyey marka dadkii kale waa loo sheegaya in lacagtaas laga jaro qofka lagu caawiyey marka koowaad heshiiska ayaa ah cooperative iskaashi oo ku dhisan yani in wixii khatar la iska kaashado marka koowaad qofku markuu heshiiska geliyo wuxuu raali ka yahay lacagtiisa walaalkiisa kula jira maxaa yeelay insurance-ka inuu kaga bixin karo haddii isaguna ku dhacdo in lagaga bixin karo marka hore qofku wuu ogyahay in saa la yeelayo oo waxay ku qoran tahay warqadda uu saxeexayo waayahay meelaha hadda aad doonaysaan inaa ku horeysaan maxaa ka mid ah waxaan doonaynaa inaan ku horeyno adeega nimka dawladdu ay gacanta ku hayso yani la yidhahdo third party insurance ama motor third party insurance ama dhinaca saddexaad oo kale oo micnihiisu yahay qofka darawalka
waa la cayminaya waxa laga cayminayaa khatarta uu geysan doono oo tusaalahaan oo kale gaari baad wadataa dabeetana shil baad gashay qof baad gaarigiisa duqaysay dabeetana wax la qiimeynaya maxay ahayd gaariga dabeetana intuu noqdo ayaa laga bixinaya laakiin waxaa ka harsanaanaya adigu wixii lagu geystay caymiska kuma jirtid oo adigu waxaad tahay first party qofkii kuwaad baad tahay oo heshiiskan wuxuu ku dhisnaa uun adigu waxaad geysatay qof kale u geysatid in lagaa bixiyo waxyaabaha aynu adeega ku jiro waxaa ka mid ah for example gaariga oo kale haddii qofku uu shil galo gaarigiisii jugweyna soo gaadho inaan maxaa ahayday ku samayno haddii uu qofkaasi dhaawac qof kale u geysto oo gaariga ugu geysto inaan ka bixino haddii ilaahay kama dhige uu qof dhinto in dee maxaa ahayday xabaashii magtii marka magta laftigeedu waxa weye diinta ku salaysan tahay hay-adan caymiska ayaa waxay soo saaraysaa wareegto odhanaysa qofka shil ku dhinta intaasi noqonaysa marka taana waxaan ka sugaynaa maxaa ahayday hay-ada caymiska ma odhan karno waa intaa markaas sharci bay sugaysaa sharci baan sugaynaa ha waayahay shirkadda baraka insurance ujeedooyinka marka aad tiigsanaysaan mustaqbalka dhow inaad horumarisaan bilmatalan xafiisyadiin oo kale inaad ballaarisaan meelaha aad doonaysaan maaragtay inaad dadka aad ka horumarisaan iyo baaq aad bulshada u jeedinayso adigoo ka socda shirkadda baraka insurance maxay tahay horta nidaamkani waa wadankeena quraatunbo iyo wadanka kale jaarkana la Soomaaliya maanu ka jirin kan islaamiga waa horta nidaamkan hore soo isticmaali jirnay baraka insurance waxaan qabanaa for example oo kale qabiil kasta waxay leeyihiin odayaal lacagti ka ururiya oo wixii yani iyaga lagu yeesho ka bixisa sooma marka baraka insurance ahaan waxaan taaganahay yani odayaashaasi halay ku jiraan ayaan ku jirnaa oo dadkii lacagta soo ururiyay markay noo keenaan annagu khidmadu baan ka qaadanaynaa khidmadda markaan ka qaadano laakiin lacagta intii harsaneed account baan ku shubaynaa accountka waxa la yidhaha common pool waa meel guud oo dadku wax ku wada shubaan marka kii shil gala kii for example oo kale ama dhimasho ku timaado maxaa ahayday wax geysta ayaanu ka dabaraynaa marka nidaamkeenani ama islaamiga insurance-kani wuxuu matalayaa uun dhaqankeenii hore ka islaamigan ka hadlaya dhaqankeenii hore buu la mid yahay halkii odayaasha ku jireen oo shirkadu ku jirayaan waa wakaalad dadkii wax laga soo ururiyo meel wax lagu meel ha marka su'aasha tale waxa weeyaan shirkad ahaan maxaad meesha u timaadeen waxa weeyaan su'aasha jawaabtii waxay noqonaysaa meeshii dawlad baa ka jirta dawladdu waxay doonaysaa adeegan islaamiga ah cid ay ku aaminto oo adeegana qaban kara oo ay shuruudo adag marisay ilaa maalin kasta dawladnimadu u soo dhawaanaynaa haddii la yiraahdo qof kastaba hadduu intuu meherada furto yiraahdo waxaan furanayaa insurance waa adkaanaysaa marka shuruuduhu way adegiin kambaniyadan maxay ahayd maanta ku jira maxay ahayd insurance-ka millions of dollars bay dawladdu ku xidhay deposit ahaan ay u dhigaan adeegay qabanayaan ayaa baaxad weyn waxa weeyaan waa sectorka labaad ee soo raacaya maxay ahayd bankinka waa su-aashan doonayaan ku weydiiyo maadaama caymis ka hadlaysaan oo hanti badan laydinku aaminayo malaayiin la doonaya inaad maamushaan idinka laftiina iyo idin caymiyeyo lacag intee leg baa ama hanti intee leg baa u horteen waxaan oo kale inaad samaysaan kolley hay-adda caymiska way haysaa maxay ahayd shuruudihii oo dhammaystiran dhammaan kambaniyada halkan ama kuwa barakaan insurance haddana iska hadlo annaga waxaan ka dhigay maxay ahayd lacag malaayiin dollar maxay ahayd ayaa dawladdu gacanta ku haysaa ayay gacanta ku haysaa oo tusaalahaan oo kale waxaa jira lacagta laba loo qaybinaya lacag asad ah oo hantiya iyo lacag deposit ah marka labada lacagoodba dawladdu shuruudihii waan buuxinay waan dhammaystirnay waa lacag hantiya oo la eegayo iyo mid horumarin oo la dhigayo oo weliba lagu shubayo accountka ay leedahay hay'adda caymisku marka maaha wax ciyaaro intuu qof iska furto meel yar oo odhanayo insurance baan geliya wax weeyaan waa nidaam ay dawladdu doonayso inay nolosha yani shacabkeeda ay ku horumariso nidaamkan weeyaan marka macnaheedu waxa weeyaan hanti baa hanti cayminaysa weeyaan baarlamaanku imika way hawsha way ku jiraan culimada qaarkoodna way ay ka hadleen waxay yidhaahdeen dadka in markaa lagu khasbo ayaa mushkilad dhanka diinta taabanaysa idinku waxaa aaminsan tihiin qofka in khasab lagaga dhigo mise qofku inuu karaankiisa uu markuu u arko dantiisa uu galo horta su-aashaas badanaa waxaan u dhaafaynaa
hay'adda caymiska iyo baarlamaanka sababta waxa weeye wax sharci ku dhisan iyo culimada marka aanu barkan insurance waxaan nahay waa adeeg bixiyaal wixii dawladdu ay garatay iyo culimada ay gartaan sharciya ama ku shaqeynayna laakiin aanu ka oranayno maxay hayday siyaasad la sameeyo farintaada ugu dambaysa barkan insurance waa shirkad cusub hadda asaasteen dad badan baa waxaan qaltaagaya inay maartay idinla macaamilaan dhalinyaro dad hantile dad doonaya inay khatarta ka badbaadaan maxaa marka ugu horeysa dadka ugu horeeya isdiiwaangeliyay dadka idinku soo horeeya bushaarooyin aa u haysa ma jiraan horta adeegani waxa weeyaan waa adeeg nolosheena wax ka bedelaya oo saano kale imka dee qabiil kasta u batay in la iska war hayaana way adag tahay waxaa laga yaabaa caaqilkii oo hargeysa jooga in dee family ay qaar degan yihiin Afrika ama bariga Afrika ama maxay Afrikada dhexe oo wax ku yimaadaan marka nidaamka dawladnimada isaan hirgelino waa in ay bulshadenu fahmaan in caymiskan islaamiga uu fududeynayo hawlihii oo familygii haddii qof ka mid shil gaadho ama shil uu geysto in dee gaadhigiisa la eegayo shirkadu ka caymisnaa dabeetana dhibaatadii halkaa lagaga dulqaadayo culayskii qoysaska soo food saari jiray ee gaariba meel galay waa in dadkii isku tagaan lacag keenaan tiimka meesha way ka baxaysaa arrinta u qaybsan bay imanaya ay imanaya oo tanada dawladnimadu bay ka turjumaysaa noloshii kor loo qaaday dadku sida guud caymiska saasay runtii fahamkeedu uu yahay waxaan damaanad qaadaysaan noocan ku shaqeynaysaan inuu yahay nooca diinta waafaqsan nooca islaamiga oo badanaa shirkadaha intaan hubo waxay wada leeyihiin maxaa hayday board culimo ah oo ka tala bixiso oo wixii talayo tusaalaha si soo hagta marka shirkad uma maleynaya inay jirto de maxaa hayday tala la'aan xagga diinta ku saabsan soconaysa ma jirto waa tahay daawadayaal intaasi ayaanu kusoo koobaynaa barnaamijkeena xogta ganacsiga oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanay arrin ku saabsan dhinaca caymiska waxaa martin oo ahaa guddoomiyaha sharikadda baraka insurance oo ka mid a sharikadaha casriga ah ee arrintaasi markaasi ka shaqayn doona oo dhowaanna markaasi laga furay somalilan waxaan rajaynayaa inaad ka fahanteen waxyaabo badan oo ku saabsan dhinaca caymiska iyo xogta ku saabsan markaasi dhinaca shuruucda qaabka wax loo qaadanayo iyo dhammaan amuuraha oo dhan tan iyo kulanti dambe waa anigoo ah cabdishakuur dayib maxamed oo idinla socodsiinaya barnaamijka xogta ganacsiga nabadgelyo